السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي صاحبيال muuqaalkani waxaan rajaynaynaa taakalka mawduuca qoran kasoo aragteen oo ah in aan iska dhaafay ama aan ka tagay shaqadii aan buuxiis u rabay waxaan idiin sheegi doonaa sababaha keenay iyo waxyaabaha aadan ogeynin inta aanan ogeynin aniga waxaa kamid ahay shaqaalaha ama qaybta support team buuxiis ku qaabilsan gaar ahaan qaybta soomaaliya wuxuu ahaa ambassador ama representative xagga soomaalida labada sano lasoo dhaafay ayaan kambanigan si toos ah waxaan u ahay shaqaalo toos ah u qaabilsan xagga soomaaliya so labadan sano shaqooyin aad u fara badan oo xagga soomaalida ka qabtay ayaa jira oo kolley way yaqaanaan dhalinyarada youtube ku xiran iyo kuwa telegramka igala soco jiray iyo discordka igala soco jiray waxaan u qaabilsanaan jiray isku xirka ganacsatada soomaaliyeed ama wixii su-aalaha ama caawinaha ku xalaalo waxay rabaan sidoo kale waxaa kaloo u qaybsanaan iyo qaybta lacag bixinta oo waxaan awooday inaan dadka soomaaliyeed qaab loo kala halaqaaha wax loo gaarsiiyo sidoo kale cabashooyinka xagga soomaalida ayaan xari jiray sidoo kale dhammaan fariimaha shirkadda kasoo baxayo ayaan waxaan ugu gudbin jirnay soomaalida luqadoodii waxaan sidoo kale u qaabilsanaan jirnay support team oo soomaalida ayaan si toos ah aniga ila macaamili jirtay dhibaatooyinka haysto kadib aniga ayaa tiimka u gudbin jiray oo xali jirnay so labada sano lasoo dhaafay shaqadaas ayaan u hayay buufikis oo ay ka mid tahay sidoo kale inaan promotion u sameeyo ama xayeysiin u sameeyo oo qaata u sameeyo shirkadani inta taqaana way taqaano oo 10 sano ay marketka ku jirtay way ka shaqeynaysay arrimahan performance-ka ama arrimaha forex-ka marka maxaa sababay in aan shaqadan ka tagin so waxaa jiro arrimo dheer muddo soo jiitamayay oo aan hadda soo bilaaban oo sababaha ugu weyn ay ka mid tahay in kambanigan ka tago aan shaqada iska dhaafo anigoo dalbaday inaan iska asilo positionkii aan u hayay si walba iskugu daya in ay qanciyaan waxaan go'aansaday inaan qayb ka noqonin so waxaan dareemay in meeshaani mugdi badan ama waxyaabo badan uu ka jiro waxyaabaha waxaa ka mid ah inta la socotay ama inta discordkay la socotay ama bluefix discordkii soomaaliya ku jirtay waxaa ogtihiin saaxiibayaal in bishii December bluefix dhammaan akoomankeedii sii traderkii ahay ay hawada ka baxeen taasoo la micnaha in bishaasi idil aanan la trade gareynin niyala wadaagay in akoomankii xagga brokerka cilada ay ku jirto so arrintaasi ayaa ka mid yahay horta arrimaha koowaad iyo arrimo horey kale oo ah in shirkadda wax ka bedel ay ka sameyso productiga ay bixiso waxaan ognahay productiga ay bixiso in laba nooc akooma uu yahay akoonka one time fee-ga iyo akoomanka kale monthly subscription-laha waxaan ognahay akoonka monthly subscription-laha ah in dadka badanaa dhibaato ay ku qabeen oo ay khidmad billa si walba loo dhiibi jiray taas waxa ka sii daran markii inta meeting la qabtay ama shir la qabtay la go'aamiyey in akoomanka lacagahoodii la kordhiyo aniga ahaan waxaa ka mid ahaa dadka diidanaa in akoomanka lacagahooda la kordhiyo oo waxaan ogaa in profit shareku aad u yar culeysyo fara badan oo xagga traderska la saaray sida lotsaaska ahaa iyo waxyaabo fara badan inay jireen inaysan macquul ahayn in lacagta la kordhiyo laakiin way dhacday lacagta ayaa la kordhiyey anagoo fikirkeeni iyo wixeenii aan nagala tixgelin oo aan nala dhegeysanayo lacagtii la kordhiyey sidoo kale waxaa ka mid ah delay payout inuu dhaco oo ah xagga payout mar walba inay dhibaato ka imaado taasoo ayadana sababtay in traderska ay ka xanaaqaan ama dhibaato xagga reviewga ay ka bixiyaan ay ka cabanayaan xagga payout-ka inay dhibaato badan ka jirto so sidoo kale culeyska ugu badan xagga waxay ka jiraan payout-ka oo waxaa arkay inay payout-ka aysan bixi karin ama payout-ka ay ku adag tahay arrintan waan kaa hadlay boqolkiiba boqol waxaa xooga saaray aniga ahaan inta taqaana inta discordka ku jirtay qaybta soomaalida ahayd in qof soomaali ah lacagtiisii dib u dhaca ugu imaanin waxaa xooga saari jiray qof soomaali ah markuu idhaho lacagta ayaa halkaas dhiga xaqiran inaan la hadlo aan dhaho lacagta dira sidii qofkan lacagtiisii waxaan boqolkiiba boqol xooga saari jiray in si nadiif oo aan hagar lahayn inaan soomaalida ugu shaqeeyo oo aan xaqoodii halkaas ugu soo dhiciyo laakiin waxaan arkay in xagga payout-ka ay adag tahay oo payout-kii dhibaato badan ay ka imaado xagga shirkadda payout-kii aysan bixin karin traderski badana ay ka cabanayaan arrintii oo saaid usoo fara badanayso so sidaas darteed waan kala hadlay qof jawaab cadda ku siinaysa male waxay ku leeyihin payout-ka isbuucana la bixinaa kana la bixinaa kana la bixinaa taasoo keentay in aan aniga go'aansaday inaan shirkadda iskaga tago oo waxaan arkay in wax fiican aysan ahayn maadaama shirkadda payout-keeda sida caadiga aan ognahay ay isbuucle uga dhaheeday maalinta jimcaha la diri jiray kadib isbedel ay sameeyeen ay ka dhigeen in maalin walba payout-ka la dirayo
haddana hadda dhibaato ay ka imaada xagga payout-ka taasoo badanaa traderska sababta marka in xagga reviewga markii la joogo shirkadda ay review xun ka bixiyaan oo hadda qofkan waxaa ujeedaa in xagga payout-ka ay ka caawinayaan keliya qofkan ma dhihi karno oo aad ay u furbadan yihiin dadka xagga payout-ka oo arrintan payout-ka ay saamaysay soo sidaas darteeda waxaan go'aansaday inaan qaybna ka noqonin maadaama meeshaan hadda dareemaya in culays badan uu ka jiro waxaan si toos ah ula hadlay shirkadda ninka iska lahay waxaan go'aansaday inaan shirkadda positionkii aan u hayo qaybta soomaalida ah inaan iska casilay oo aan hadda kadib aan shaqay karin aan shaqadeeda sii wadi karin kadib way iga aqbaleen oo waxaa ujeedan fariintaani ay gruubkii soomaalida la wadaageen taasoo ah in telegramka qaybta soomaalida discordka qaybtii soomaalida ahayd ay hawada ka saari doonaan ay dilid gareyn doonaan so way go'aamiyeen sidaas markay go'aamiyeen way iga aqbaleen anigana waxaan u sheegay dhalinyarada meesha ku jirtay in aan shaqadii aan iskaga tagay sababo awgeedii isfaham daro aniga xaggeedii aniga shirkaddan dhex maray maadaama ay ayaga dib u sii dhacayaan ama dib u sii laabanayaan halka shirkadihii kale ay hore u socdaan so marka waxyaabaha ugu badan waxay ka mid yihiin in productigii ama akoomankoodii ay qayli kasii dhigeen xadidaad ay aad u fara badan tahay akoomankii aanan laga bixi karin ay aad u adag tahay xaggii loodkii oo ayadan dhibaato kasii jirtay lacagtii lagu sii daray iyo tan ugu weyneed xagga payout-ka oo hadda dhibaato weyn ay kasii jirto so marka hadda telegramka haddaad tagtid waxaa ujeedaa in qaybtii soomaalida laga saaray sidoo kale waxaa meesha kale ka baxay gruubkii kale ee faransa iyo isagana waa laga saaray oo qaybta ingiriiska markii aad tagto waxaad arkaysaa in cabasho aan innaba caadi ahayn ay meesha ka socoto ee ay ka cabanayaan traderska oo idil in burbaleen uu ka jiro xagga payout-ka oo waxaa ujeedaa payout-ka in qof walba uu ka cabaadayo oo lacagtiisii uusan muddadaas ku helin ama lacagtii aysan soo gaarin taasoo sabab u noqotay shirkadda markii aan kala hadalnayn markii horena in wax jawaab ah aysan ka bixinin markii aad dhahdo waay payout-ka loo daahinayo waay sababtaan la sameynaya wax jawaab ay madkeelaysid oo waxay ku dhahayaan wax jawaab aad ku siinaysa ma laga aamusan taasoo keenta ayadana in aan u arko in meeshaan ay wax dhibaatay kaga socdaan sidaas darteed saaxiib yar waxaan niila sheer garaynayaa hadda kadib in aan aniga ka mid ahaynin kana mid ahaynin aanan support teamka meeshaan ka mid ahaynin oo aan shaqadii halkan aan ka hayay aan iskaga tagay so marka waxaan ku leeyahay si taxadir ah halkan kala soco waxyaabaha kusoo kordho ma aqaan mustaqbalka shaqadan sida noqon doono anigiina waan ka baxay oo hadda kadib wax caawinaad ah oo aan ka caawi karo haddii ay dhibaato halkan kugu dhacdo ma jirto so muuqaalkan halaas uu ku saabsanaya saaxiib yaal aniga kuma dhahayo groupkis westcam ama sidaas way kuma dhahayo laakiin waxaan ku leeyahay waxa hadda socdo waxa shirkadda u fiican ma aha wax shakhsiyadeedina u fiican ma aha oo waxaan arkay meesha inaysan wax fiican kasoo socon saas darteedii ayaan anigii ahaan u go'aansaday inaan xur ka noqdo oo aan banaanka ka taagnaado shirkadda weli way shaqaynaysaa akoomankeedii waa lagu trade gareynayaa laakiin xagga payout-ka ayaa hadda dhibaato ka jirto soo wixii mustaqbalka dhici doona ma aqaano waxaan niila socodsiinaa in aan jagadii ama shaqadii aan labadii sano ugu dambeysa soomaalida u hayay aan meeshaan iskaga tagay oo hadda wixii ka dambeeyo aanan wax ka qaban karin qofkii barbaleen ka qabto shirkadan insha allah waxaa jiri doona muuqaalo badan oo aan niila wadaagi doono shirkado cusub oo proformiska ah weliba kuwa instantiga ah kuwaasoo aad iyo aad boqolkiiba boqol ugu fiican bluefix youtube-kayga soco wixii faahfaahin halkaas ayaa soo dhigi doona insha allah asalaamu allah calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu